waxaa ii muuqda Soomaaliya ee noqon doonto wadan horumarkeedu ka horeeyo wadamo badan. waxaa ii muuqda wadan dhaqaalihiisu uu la tartami doono wadamadii aanan burburin. waxaa ii muuqda wadan ka faa'iideysan doona kheyraadkiisa dabiiciga ah hadday tahay beeraha, xoolaha iyo kalluumaysiga iyo macdanta kale oo adduunka kale aan u suuq geyn doono. Soomaaliya ayaa noqotay wadankii 37aad ee gaaraha hal-abuurka deymaha looga cafiyo wadamada lacagta deynta ah ay ku leeyihiin dalalka adduunku. Guushan ayaa uga dhigan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed mid weyn maadaama dalkan ku yaala Geeska Afrika uu la soo laabanayo xiriirkii uu la lahaa hay'adaha dhaqaalaha sida Bankiga Adduunka, Hay'adda Lacagta Adduunka iyo Bankiga Horumarinta Afrika. Dowladda Soomaaliya waxay ka soo baxday 94 shuruudood oo guushani ku xirnaa. Laba sababood ayaa la aaminsan yahay inay saldhig u tahay gaarista guushan taariikhiga ah. ammaanadu waxay tahay wixii aad noo dhiibateen inaan siday tahay idinkugu hayno oo aan isku keen hayno oo wadajir iyo midnimo idinkugu shaqayno. wixii aad noo dhiibateenna si fiican idinkugu maamulno oo aan la dagaalno musuqmaasuqa. waa midda koowaade madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo hay'adaha dowladda ku hogaamiyey ilaalinta ammaanada shacabka, isla xisaabtan iyo maamul wanaag maaliyadeed. waana sidii uu ballan qaaday markii la doortay. hogaamintaasi waxay sahashay in laga soo gudbo dhammaan taxanihii hannaanka deyn cafinta ee la soo maray. sababta labaad waa garab istaagga ay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed ee canshuur bixiyayaasha ah, kuwaas oo la'aantood ay dowladda Soomaaliyeed ka soo baxdeen shuruudo badan sida kobaca dakhliga oo muhiim u ahaa safarkii hawshani loo galay. marka laga soo tago dhismaha ciidamada qalabka sida, qodobka labaad ee muhiimadda weyn ay siisay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo waa barnaamijka deyn cafinta, kaas oo halkan inuu soo gaaro laga soo maray caqabado badan. qaadashada iyo hirgelinta go'aamo adag, ka tegista dan gaar ah iyo ninjeclaysi, u adkaysiga cadaadis iyo culaysyo badan, la dagaalanka musuqmaasuqa. si kastaba guushan ay gaartay dowladda Soomaaliya waxaa dhici karta inay jiraan shacab Soomaaliyeed oo aan ka haysan faham buuxa. haddaba waa kan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo inoo kala qeexaya meesha aynu ka nimi iyo halka aynu maanta joogno. shalay waxaan joognay inaanan xiriir furan oo wax nala ku aamini karo aanan la lahayn Bankiga Adduunka, Hay'adda Lacagta Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika. shalay waxaan joognay inaan nahay wadan nidaamka maaliyadda ka dhacsan. maanta waxaan joognaa wadan Hay'adda Lacagta Adduunka, Bankiga Adduunka, Bankiga Horumarinta Afrika aanay wax shilin oo deyna ku lahayn, oo aan annaga iyo wadamada dariska iyo wadamada dunida u simannahay. labo, maanta waxaan joognaa inaan nahay wadankii ugu dambeeyey oo loo ogolaaday deynta in laga cafiyo. macnaheedu waxay tahay albaab walba maantuu noo furmay, fursadna waan leenahay shilin walba oo nala ku leeyahay ama dollar walba nala ku leeyahay in nala ka tirtiro. macnaha waxay tahay albaab walba waa lagu furay, inta kuu hartana adigu shaqayso. wejigaas waxa uu yahay Soomaaliya cusub oo fursad cusub leh. Soomaaliya cusubna ma aha dadka magaalada Muqdisho jooga, waa qof walba Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa jooga. cidda rabtaa inay 500 milyan gashato Hargeysa ama Burco Bariitay tagi kartaa, waayo caymisyadii hortaagnaa waa laga qaaday tallaabadii hortaalay. cidda rabtay inay bilyan gashato Garowe ama Kismaayo ama Dhuusamareeb wax hortaagan male, sababtoo ah caymisyadii dunida oo waagi hore diidanaa waa laga hor wareejiyey. macnaheedu waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya warqadda ay u qorto Bankiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka iyo hay'ad walba horumarineed iyo waxa isku mid ah dal walba oo kale warqadaha ay qoraan. waliba shuruudaha qaabka aan uga soo baxnay iyo hufnaanta aan uga soo baxnay sareynteeda awgeed fursadda maanta aan haysanno ayaa ka badan fursadaha dowladaha dariska. waxaa muhiim ah in shacabka Soomaaliyeed ay fahmaan faa'iidada dalka iyo dadka ugu jirta guushani taariikhiga ah ee aynu ku tallaabsanay. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa mar kale inoo faahfaahinaya faa'iidooyinka laga dhaxlayo guushan. waxaan naga caawinaysaa dib u dhiska dalka, sababtoo ah waxaan heli doonaa dhaqaalo lagu dhiso iskuulada, isbitaalada, jidadka, lagu abuuro shaqo. waxaa kobci doona dhaqaalaha dalka dhan oo miisaaniyaddan malaayiinta ayaa insha Allah waxay gaari doontaa balaayiin.
waxaa bilaaban doonaa in dadka Soomaaliyeed ay helaan adeegyo waafi ah waxaa dawladda Soomaaliyeed helaysaa aaminaad ah in dunidu nagu aaminto dhaqaalaha dalka loogu talagalay waxaa isbedelay laga bilaabo saacadan wajigii lagu yaqaanay dalka Soomaaliyeed iyo qaabkii loola macaamili jiray sidoo kale waxaa u dhib yaraan doona bangiyada Soomaaliyeed ee dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin inay la macaamilaan bangiyada adduunyada ku yaala dowladnimada Soomaaliya dhinac walba waxay ku jirtaa soo kabasho weyn shakino kuma jiro 3 sano ee uu dalku hogaaminayay madaxweyne Farmaajo in la gaaray guulo taariikhi ah maalmaha iyo bilaha soo socdana waxa soo baxaya dhawaaqyo kale oo farxad geliya shacabka Soomaaliyeed